waxaan rabnaa wabar socdaal ujeedada wabar socdaal loo soo dhaweeyay duubabkii hore waa la soo dhaweyn jiray duubabkii hore bacdamaa la soo dhaweyn jiray asaga mid baa dheer wuxuu yiri dadkan dhibka ha laga dul qaado waa arrin culus dadkan dhibka ha laga dul qaado qofka yiri si gaar ah ayuu noogu leeyahay xushmad iyo soo dhaweyn iyo ixtiraam wabarka raganimada iyo geesinimada runtii waa loo dhashaa wuxuu bannaanka la soo istaagay in uusan raalli ka ahayn dhibaatada meesha taalla sida aad la wada soconno social media lagu wada xiran yahay heer waxaa dhacda qof dumara xaamilo ah bilaheeda dhammaadeen gaari weyn oo Land Cruiser oo mukayf lama saarnee tug saaran ayaa laamiga ku dhashay bal dhibaatada dhiman maxay tahay war qofka dhalaayo waa hooyada waa walaasha waa gabadhaada waa xaaskaaga haddaysan intaas adiga ku ahaynin bay u tahay ma malay kartaa marka in aad xaaskaaga inay wadada ku dhashay aad u qoortid may gabadhaadan ninkii ka dhibaatooday ee u istaagay wallaahi waa indheer garad tufti iyo tahliishina laguma qadan waxaanu caleema saaranana waa ka soo baxay miyaysan saas ahayn wabarka dhiiranaanta mararka qaar fulayo guuli ku dhaweyda halin waxaad dareemaysaa qof jiro qof xoolihiisa hortiisa lagu haysto markuu yiraahdana waryaa hadduu yiraahdana qaadan lahaa haddana dhihi karin war khayr allah siiyo ninkii yiri dadkan dhibka ha laga dul qaado waxa hadda hoolkan u soo buuxiseen wax kala ma ahe ra'yigaas aad qabtaan soo saas ma dadka dhibka ha laga dul qaado soo ma qabno wabaro waxaad haysataa qalabiyad waxaad haysataa bulsho sidaan dareensanahay dadka banaanka jira waxay qabaan maskax degan oo caafimaad qabta waxay haystaan jaanis ay kaga fikiraan dhibaatada xagga ka jirta qaabka loo falanqeynayo wabaro dadka dhibaatada iyo rafaadka iyo juhdiga badan ku jiro fikrado badan ka mehelaysidii dibadaha soo wareeg dadka miyirka qaba ee aanan ka fikirayn dhibaatada xaaskaaga haday umulaysa wadadee marta aan ka fikirayn dadkaas runtii tala badan ay ku hayaan faliya tafadal Nairobi ku soo dhawow inaad cuqaasha indheer garadka dadka wax fahamsan gooni ula kulanto si aad warbixin ugu qaadato ayaan ka codsanaynaa kun jeer raali noqda hadalka waa idinku badinay especially aniga ujeedadaan u badinayaa waxay aheeday wabarka inuu igu weyn yahay ninkii yiri gabdhaha bajaajka saaran ee xaamilada yeysan wadada ku umulin wadada ha loo furo Allah guulay wabarka Allah guulay guusha sida aad ka dareemaysid markaan dhaho dhibka ummadda ha laga daayo cadow badan ay yeelana cadowgiisa Allah jibiyo hadalka waa gaaban yahay wali aamiinta cadowgiisa Allah jibiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin